بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن صاحب يالكسو دوادا شيكا قابنا والله مقع بحضي همجي عقال qisadan oo ah mid dood badan dhalisay ayaa dhowr iyo 10 daqiiqo kaga bogan doontaan abwaan shaafici axmed aadan abwaan daacad ayaa u kuur galay oo qoray qisadan waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah cabdinaasir axmed xasan cabdinaasir xiiri ama say fantastic ubaxoo dilaacay dawadii naftayday haweentaan ka doortay abwaan ayaa yidhi allow yaa hamiin qura uurkayga qala oo qudha uun layga jarin qurumaha ku loolama ku yidhaahda garta u qaad abwaan kale ayaa yidhi dayixiyo cadceedda daraad layga yeero daruuraha korkooda durbaan layga tumaye dariiqan ka laabtana dabaylihii jacaylka igu soo degayo daris aynu noqonne abwaan ayaa isna ku cataabay waxaan xasuusta suugaanta waayo u soo qaatay in aan idin dareensiiyo halka aan u socday inay tahay jacaylka iyo amuurihiisa culummada ka faallooda jacaylka iyo waxa uu yahay ayaa midabo badan ku qeexa oo waxa ay qaarkood yidhaahdaan kow jacaylku waa kan yimaada gurigalka kadib micnaha lamaanaha nolosha wada qaata caashaqna waa ka helitaanka qofka quruxdiisa habdhaqankiisa codkiisa micnaha waa gabar wiil ka heshay ama wiil gabar ka helay oo waa halka qadro daahir ay ka leedahay xabaal nin galay xaq weeyaane ileen xubbi baa xagna u dhicine marka caashaq ka helitaan ayuu noqday saddex kalgacal waa midka ka dhaxeeya bulsho weynta sida qoysaska asxaabta iyo wixii la halmaala kaasna waxaa loo yaqaanaa kalgacal dhanka kale culummada qaar ayaa iyana yidhaahdaa jacaylku waa wax kama jiraan oo waa jin iyo cudur dadka qaar ku dhaca haddaba jacaylku yuu yahay ma jinkaa la sheegaa mise waa wax jira oo loo baahan yahay lana arki karo ujeedka iyo biyodhega qisada ayaa halkan ka bilaabatay cigaal oo ciribta saaray da'da 40aad ayaa asagoo gurigiisa jooga waxaa soo booqday jacayl jiifkana ka kiciyey cigaal waa doob weynaaday weli reer ma dhisin mana yeelan carruur waa nin waqtigiisa inta badan waxbarasho ganacsi iyo la socodka siyaasadda ku soo qaatay cigaal waxa uu ku hamiyey guur balse waxa uu ku yabaalay kumanaankii hablood ee Soomaaliyeed oo quruxda loo daayay wuxuu ka bixi waayay tan ayaa ku leh maya waa tan waxaana galay cabsi xoog badan ee uu ka qabo jacaylka marka aan leeyahay cigaal jacaylka ayuu ka cabsaday dhowr jeer oo hore ayuu isku dayay inuu haasaawo la sameeyo dhowr gabdhood oo ishiisu qabanaysay balse isku daygaas kuma guulaysan oo meel dhexe ayuu ku kufay sidaa daraaddeed cabsi ayaa xilli walba ku jirta cigaal jacayl ayaa hamiin saq dhexe u soo dhacay cigaal oo aad u hurdaya kadib hurdadii ayuu ka kiciyey cigaal ayaa ku yidhi war waa nima markaas ayuu jacaylkii yidhi cigaal waa jacayl midig iyo bidix horay iyo gadaal waxaa hal mar ka wada yeeray erayo isku dhex qasan oo ahaa good iyo abeesa mindhaageedka lagugu xidhee gubatay waxba hay guhaadin
adaa haweeyay halbowlahayga aduu ku hiifo waad hawlo badnaatee intee haweeyay laga hela sidaan u bartay hurdada ma bogto barkimaha hadba beerka saaraaye iyo erayo kale oo micno kala duwan leh ayuu isku dhex qasay cigaal waa uu malaysan waayey waxaa hor fadhiya inuu jacayl yahay laakiin markii jacayl buwaagtiisa uu u kala furay waa uu aaminay jacaylkii oo lugaynaya inuu u yimid cigaal oo caro iyo cabsi ku jirto ayaa jacaylkii su'aala kula soo booday kuna yidhi jacaylow col baa tahay cillad aan logayno culummadu dawayno laga caagay baa tahay laba ruux cashiiraa cod iyo muuq ka wada siman midab cayn sareeta ceeb horeeto aan marin hadba kooda cood wadan hadduu kuu calaacalo maxaad ugu ciyaartaa cuqdad baas u gelisaa kan kalena u cayntaa casharada u siisaa calamada u saartaa farxad ugu caweeya cidda ugu riyaaqan ciirsi kaama sugaayee haddaad caymo leedahay kuwa caan ahaa iyo cilmi soo adigii gabay u caddeeyey xaajadu in ay cakiran tahay laylana carrowsho cagta saaray oo dilay jacaylka oo eedo badan cigaal u soo jeediyey kuna tilmaamay mid axmaq ah oo cadow ah ayaa yidhi cigaalow walaalow anigu cayn saraan ahay cudud xoog le baan ahay madow iyo caddaankuba way wada casuumeen waana ii codeeyeen waayihii caddaayo carraweelo joogtana calan baan lahaan jiray waxaa culamo diineed curud iyo abwaan jira ama caaqil reera leh cisho igama maarmaan anay igu caweeyaan haddaan ahay colkoo kale ama ciirsi aan gabay caruus lama noqdeenoo carruuriba ma dhalateen waa maxay catowgan cigaal oo raba inuu dhareerka iska dugo jacaylkana u gar sheegto ayaa mar kale yidhi jacaylow ma aan caban mana aan calaacalin caloolyowna uma hudan cisho qura kolay tahay ma samayn cilaaqaad aqligaygu waa taam carruur waan ka weynahay cimri baana jooga cindig baan ka ahay maal cayr ma ahi faramaran ciddaa xoola joogaan caddiin baa la dhuuqaa ciirta waa la daadshaa canab iyo xabiibiyo hablaheenna caankaa hadba caynta aan rabo haddii aan codsi u diro ima cayrinaysee adaan kaa cabsanaya inaad ila carrowdo igu tuurtid ceelo cududaha ijabiside may caawinaysaa mise cadow ayaa tahay caawa aan u nugulahay mise waan ciroobaa ciro iyo bus yeeshaa cidaheenna joogaa iska caaganaada cigaal iyo jacaylkii jilbaha ayaa dhulka lagu wada riiqay mid walbana gartiisa ayuu dhiibtay balse jacayl oo loo dan sheegtay ayaa yidhi waa adigan cataabaye haddaan kuu cimaamado cisiyo karaamada kuu qaato caynka afar cayn rag uu yahay cigaalow midkee tahay kow midaan cood lahaynoo haddii uu calmado gabar cisho qura shaqaynayn calafkeeda siin karin hooyadiis la ciirsada ciddu ay u biilaan cani nacaba aad tahay labo midaan cood lahaynoo carruur aan ka soo kacan dadka aan cisaynayn maatadana caddibayo coodkooda soo dhaca cillanaad miyaa tahay saddex ma mid cood leh baa tahay carruurtiisa iidaha calal aan u gadi karin cayntii uu xabaalana cido kale ka biisheen bakiil ceeb lah baa tahay afar ma mid ceeb la' baa tahay xasiiskii ilaahay ka dheereeyey cunuqoo cisho iyo dharaartana cibaadaad u taagnayd cigaal ayaa isna dhankiisa ku beeneeyey waxa uu sheegayo oo dhan kuna garnaqsaday inuu yahay nin wanaagsan balse cabsidiisa ay wax walba ka soo xirxirtay cigaal ayaa yidhi jacaylow ma aan caban haddeeraan cuslaado da'dayda cakiranto cunug ii adeegiyo carruur aan u baahday kuumaan cataabeen
ciin iyo maahi caws iyo geed caleentiis ayagaa cilaaqaad cisho qura u baahane sida roob cadceedeed casirreeqii cagadhigay abaartii cakirantiyo ciriddiyo habaaskiyo inta ciirsi laga helay casiskuu biyuhu dhigay coodkiiba loo raray cishadaas ninkii taga cindigiisa suu yahay ayaan canab u goobaa inay ila cawaysee ma iga caawinaysa jacayl iyo cigaal in muddaa ayaa muran xooggan dhexdooda ka taftay amase ka bilowday mid walibana waxa uu soo bandhigay inuu asaga seexan yahay markii ay halkaa sheekadu maraysay ayaa cigaal hurdadii ka soo baraarugay ileen ninkuba qarow ayuu ku jiray oo wax jacayl ah uma imaan waxa uuna ku calwasaaday hamigii uu guurka ku taamayey riyadii xalaytaan rumaysto raaxaan moodo waan riyaaqe ilen raad gurasho malaha i reebtee aniga rafaade riyadii xalaytaan rumaysto raaxaan moodo waan riyaaqe raaxaan moodo waan riyaaqe raaxaan moodo waan riyaaqe ilay raad gurasho malahay reebte aniga rafaade ilay raad gurasho malahay reebte aniga rafaade cigaal wixii hamiinkaasoo oo dhan la rogrogmanayay kuurkuursi iyo farataagtaagna ka dhammaaday been ayay ka noqotay oo marka uu indhaha kala qaaday keligiis ayaa hadba gees u xamaaranaya daalka iyo diirta ka muuqatana aad yaabayso haddaba su'aashii ahayd jacaylku yuu yahay waxaan jawaab uga dhignay mala awaal iyo waxaan jirin uuna yahay cudur aan ka bixin ruuxii uu haleelo waana qayb ka mid ah waalida socota qisadii gaabneed ee hamigii cigaal intaas ayay ku soo idlaatay kuna soo dhammaatay waxaa qoray oo u kuurgalay qisadan abwaan shaafici axmed aadan abwaan daacad waxaana idinla socodsiinayey anigoo ah cabdinaasir axmed xasan cabdinaasir xiiley amase fantastic intaan ku kulmi doono sheekada tan xigta nabadiino